kusoo dhawow Somali Voice in Norway magacaada iyo muddada aad magaalada joogtay. magacayga waa Cabdullaahi Maxamed Cadow magaalada Bergen waxaa deganaa ilaa iyo 23 sano. Sidee u aragtaa tirada ururada Soomaalida iyo tayadooda? Wallaahi Soomaalida ururada kala duwan ee magaalada Bergen ka jiro ururo yaryar ayaa jiro oo aad u tayo liita oo Soomaalidana aad macnaha waxqabadkoodana liito oo kala tagsan aan iswaafaqsanayn ayaa Bergen ka jiro. marka ururadaas waxaa aaminsanahay inaysan tayo ahaan wax qaba karin ayaa aaminsanahay ilaa iyo Soomaalida ka tashadaan ururo midaysan ama urur dalad ilaa ay ka helaan. Ma jiraan ururo aad isleedahay waxbay qabteen iyo kuwa aad isleedahay waxbay ku dheeleen? ururo waa jiraan ururo qaarkood waxyaabo ay qabteen waa jiraan aan saa u badnayn laakiin way jiraan laakiin ururo kalena way jiraan oo xoogaa sumcadda xoogaa xagga Soomaalida dhibaato ka soo gaartana way jiraan. Waxay ugu baahi badan yihiin bulshada Soomaalida ku dhaqan magaalada Bergen iyo nawaaxigeeda. Bulshada magaalada Bergen degan 100% inta baahi badan maanta jaaliyad ma jirto. waxaa loo baahan yahay jaaliyad midaysan weliba Bergen iyo nawaaxigeeda 100% baahida waa loo baahan yahay urur jaaliyad oo aad u baaxad badan oo shaqo badan qabato dhibaatada ciyaalka halkan ka haysatay iyo annagaba naga haysato iyo isfahan la'aanta wadanka iyo Norwegianka isfahan la'aanta xaliso u baahan. Maxay tahay fariinta aad Somali Voice u marinayso heerarka kala duwan ee maamulka Norway? dowladda Norway waxaa leenahay dadka Soomaalida waa dad iska dhibaataysan dhibaato badan meelo badan ka haysato caawinaad badan u baahan oo cid u hadashana aan lahayn. intaasaan dhihi lahay. Maxay tahay fariinta aad bulshada Soomaaliyeed u marinayso Somali Voice in Norway? bulshada Soomaalida waxa uu diraa inay ogaadaan jaaliyad inay muhiim tahay. jaaliyadda marka laga soo tagay wadanka oo wadan shisheeye la yimaado lagama maarmo jaaliyad 100%. waxaan jeclaan lahaa inay arrintaas ku baraarugaan.